waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidahay Show aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan ulana falgashaan muuqaaladan bartaan soo dhigno fadlan haddii aad markii kugu horeysay aad janaalka soo booqanayso subscribe inoo saar haddii uu muuqaalku ku cajab geliyna ama aad ka heshay ilaag inoo saar maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Fast and Furious oo kamid ah aflaamta uu Sanjeedu sameeyay kuwooda loogu jecel yahay marka soo dhawaada saaxiibayaal filimkani Fast waxa uu kamid yahay aflaamtii aadka loo jeclaa in la daawado xilligii shaleemooyinka filimkan waxa uu soo baxay 7 Oktoobar ama bishan aan ku jirno markii ku beegnay 7 halka laakiin dhanka kale shabakada caanka ee Box Office India waxa uu diiwaan gashay in filimkan uu soo baxay sanadii 15 bishani ayay u diiwaan gelisay in uu soo baxay laakiin sida xaqiiqada ah ama Wikipedia waxay qabtaa in filimkan uu soo baxay 7 Oktoobar sanadii 1999 markaan eegno filimkan waxa uu gameelkooda jalaaga caanka ah Sanjeedu Namrata Shiratkar, Deepak Tijori, Sanjay ninka lagu magacaabo Sanjay Naverkar, Mohan Baal ee Soomaali dhahan ama ay Soomaalidu dhahan Santaag ama naaga xooge sidoo kale waxa filimka ku jirto Ekta Sohani oo ah xaaska ninka lagu magacaabo Mohan Baal sidoo kale dadiyada kale filimkani ka soo muuqdo waxa kamid ah Shivaji Satam, Rema Lagu, Osha Navadgarni, Barish Rawal ee Soomaalida oo soo ka dhahan Mohan Joshi ay Soomaalidu sidoo kale dhahan Madfac iyo sidoo kale artist Fadiyardi qof lagu magacaabo filimkan waxa soo saar ka ah ama director ka ah ninka lagu magacaabo Mahesh Manjikar ninka lagu magacaabo sidoo kale waxa agaasimo ka ah ama aan soo saar waxa ka ah ninka lagu magacaabo Deepak Nikajla filimkan muusigada waxa uu garaacay Jatan iyo Lalit halka heesaha uu qoray ninka lagu magacaabo Samir ninka lagu magacaabo saaxiibayaal filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 235 tiyaatar lacagaha lagu qarash gareeyay waxa lagu sheegaa 7.50 karoor saaxiibayaal waxa uu keenay ama gudaha Hindiya ka soo xareeyay 12.42 karoor wadarta guud daafaha caalamka waxa uu ka keenay 20 karoor saaxiibayaal natiijada waxa uu noqday film sami hid ah ama guul ama hid dhaxdhaxaad ayuu noqdo ama guul fiican ayuu gaaray ayay ka dhigan tahay saaxiibayaal filimkan waa filimkii 14aad ee lacagihii ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1999 markaan eegno filimkani iyo xaqiiqooyinka laga diiwaan geliyo waxaan eegi doonaa ilaa iyo dhowr xaqiiqo saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeysa aan ka eegi doono filimkan waxa weeyaan waxa la leeyahay filimkani waxa sheekadiisa dib u sameeyeen dhanka ay qolada koonfurta Hindiya aflaamta sameysay Tollywoodka waxayna magacahan filimkani u bixiyeen ama film loogu magac daray Don Jera ay sameeyeen dhanka iyo dadka aflaamta ka sameeyay koonfurta Hindiya saaxiibayaal ama Tollywoodka waxa uu taqaanaba xaqiiqooyin kale waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkani waxa laga sameeyay qayb labaad ama maadaama uu ahaa taxana amal ayaa loo sameeyay qaybta koowaad Fast weeyaan qaybta labaad ayaa sanadii 2002 waxa sameeyay Sanjeedu laakiin filimkaasi waxa ku helisay gabadha lagu magacaabo Shilpa Shetty waxaana loogu yeeraa ama loo baxshay filimkaasi Hadiyar saaxiibayaal xaqiiqooyin kale filimkan laga diiwaan geliyay waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay oo agaasimo ka noqdo ama director uu ka noqdo ninka lagu magacaabo Mahesh Manjikar ninkan sidoo kale waxa kamid yahay aktarada aflaamta ka soo muuqda waana director sidoo kale saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwaan geliyay waxa kamid ah waxa la leeyahay ninka lagu magacaabo Mohan Baal ama Santaag waxa uu taqaan ama naaga xooge iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Ekta Sohani ayaa filimkan waxay ku jileen nin iyo xaaskiisa sida laakiin nolosha dhabta ah waa lamaane isqaba saaxiibayaal ninka lagu magacaabo Mohan Baal iyo sidoo kale Sohani gabadha lagu magacaabo ama Ekta Sohani gabadha lagu magacaabo saaxiibayaal xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah atrishadii birsamaadka dhanka hooyooyinka aflaamta ku jili jirtay Rema Lagu inkastoo ay geeriyootay sanadii 2017 haddana waxa la leeyahay filimkan wuxuu ku jishay hooyada Sanjeedu laakiin nolosha dhabta ah xilligaas Sanjeedu waxay ka weynayd 1 sano oo kaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xogtii yareed iyo xaqiiqooyinkii u gaarka ahaa filimka Fast ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu aadka u jeceshahay fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan ilaag inoo saar haddii aad janaalka cusub taana subscribe inoo saar si aad u hesho sheekooyinkan iyo sheekooyinka xiiso badanba waana mahadsantiin saaxiibayaal